السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى يا محل بفضله ومنه وإحسانه. بني آدم نقدر ماركتي سيان أقرأ ماركتي waxa oo dorasta ah ee maanta noo muuqda iyo waxa biri soo socda ilaa xayawaanku ma gartaan xataa geelu waa gartaa marka roobku da'ayo iyo lo'du meesha roobka ka da'ay sankay u taagan sanka way garanayaan macnaha geelu waa roob raacay ayaa la yiraahdaa waa roob raacay macnaha marka roob da'ayo waa arfiyaan laakiin bini aadanka qoostay oo irdaa xirtaan la hadlaya maaragtay waxaan rabaa inaan u sheego jaalahawi wuxuu yiri dukaan baan gadanayaa dharna waa gadaa kabana waa gadaa haddii ilaahay ku reeyay maqaayad restauranteena waa furaa guri dabaqana waa dhisaa laakiin mooryaanta lama hadlaayo mooryaanta ku dilaysa shabaab waa mooryaan fahad yaasi waa mooryaan ciidanka dowladdu waa mooryaan saadiq john waa mooryaan dowladda waxa u shaqeeya dhammaan waa mooryaan maxaa yeelay sharci wax kastoon ku dhaqmin horta mooryaanki kalamadu lagu leeyahay dowladdii cabdullaahi dowladda siyaad barraa samaysay waa mooryaangi in badan oo yaryar waaye mooryaangi dadka dagaalamaya oo jabhadda UC muqdisho ka dagaalamaysa waxaa loo bixiyey xilligaas oo wasiirka arrimaha gudaha cabdiqaasir ahaa mooryaangi kuwa badan oo yaryar dad qaarkood Soomaaliya u qaateen kelmadda mooryaan ama waxay u qaateen dad dagaalama laakiin jirri ayaa af Soomaali ahaan lagu yiraahdaa jirridu sharci ma leh sharcigooda ayaa ka goosta jirridu cidna uma naxdo jirridu dastuur loo dib raaca male jirridu go'aankeeda ayada qaadata jirridu cidna ma matasho jirridu cidna uma naxdo sida madaxweyne farmaajo iyo qeyrna u dhaqmaan oo kala way gurigan gal dad kulay soo qafaalo guriga geyso wax kastoo sharci ku dhaqmin waa jirri laakiin Soomaalidu kelmadda mooryaangi oo ah kuwa yaryar oo tira badan ayaa jabhadda UC loo isticmaalay sida awgeed jaalahawi hoteelo badan oo dhisay guryo badan oo dhisay maqaayado badan oo dhisay laakiin waxay ka tageen inay dhalinyaradooda ay lacag inta siiyaan ay dhahaan waardiyaha iyo taladanada ka qayb qaata taas iyo ayaga markay kala go'eenna waxay noqotay in meydkii ninkii qaaday asaga madana la sii dilo bal u fiirso goormay bilaabatay cali imaan sharmarke ayaa meyd wuxuu qaaday mahad maxamed cilmi ilaaha u maleeyaa nin wariye ahaa ee muqdisho raadiyo ka hadli jiray raadi hoon afrika ku dhex yaala ka hadli jiray hoodi subaxii ka hadli jiray subax wanaagsan ninkaasoo dhaawiciisii qaaday markuu dhaawiciisii soo duugaa la dilay maalinkii ilaa haddeertaan nin hawiya oo dhintay oo dhaawac qaado isbitaal geeyey kii ka soo noqdaa la dilaa waa masaakar waa xasuuq la dhammaystirayo ayadoo sidaa ay tahay madaxweynuhu haddii Itoobiya uu ka dhaco qarax yar twinterka uu soo dhigaa laakiin adiga xuquuq ma lihid marka horaaba lagu yiri muqdisho xuquuq male muqdisho matalaad male muqdisho senator male muqdisho xildhibaan male muqdisho oday u hadla male muqdisho golo konsal male muqdisho ayadoo isma doorato xaafadaheeda waa loo dooraa gudoomiyaha waa loo dooraa dhaqaalaha waa laga qaadaa Soomaaliya ka talaysa muqdisho wasiirka arrimaha dibadda muqdisho ka taliya wasiirka arrimaha gudaha muqdisho ka taliya wasiirka amniga muqdisho ka taliya qeyre muqdisho ka taliya maalinkii loo baahdo in hawiye la mashquuliyo book fair ayaa la dhigaa book fair
buug fayr ayaa la qabanayaa buug asaa meel qurxoon isugu yimaadaa ra'yiga caalamkaa la qaldaa ra'yiga dadkaa la qaldaa boqol ay u dhintaan sida xasharaadkay u dhintaan wax ka fikiraya male warkii hore war soo dhaafsi hadda wixii hore iska dhaafa hadda wixii hore waa soo dhaafeen hadda waxay maraysaa in dalkii Soomaaliyeed niman Oromo la yiraa oo 50 milyan in maaragtay la soo geliyo haddii daafin nin amxaaraho daafi karsanaya maqaayadiis haddaa ka wada shaqay weysaan talada hadda lagu socdo haddaan laga bixin meesha odorostayda macnaha liigu soo celiyo lacagna kaama siisna aniga liigu soo celiyo sidaa awgeed ma la socotaa 1945kii waxay beerdareeyeen Falastiin